Imin wanaagsan daawadayaal xilli kastoo ay idiin tahay soo dhawaada markan waxaan idiin haynaa muuqaal cusub oo ka duwan muuqaaladii hore alfanaan iilayare oo lagu wada qaliin madaxa inuu galo goordhow dadka Soomaalida waxa uu ka codsaday inay u soo duceeyaan maadaama maalmihii la soo dhaafay leero oo ahaa mid markaasi bukaan socod ah intaas iyo in ka badan ayaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal balse marka hore waxaan iga in muuqaalkan aad follow dhahdaan siina share gareysaan idinkoo leeg dhahaya si muuqaalku u gaaro saaxiibo badan haddii aad nagala socoto dhinaceena YouTube-na waxaan kugu xushmaynaynaa in janaalka subscribe aad dhahaato gambaleelka furta si ay kugu soo dhacaan muuqaalada aan iyaguna halkaasi ku baahino waa hagaag fanaanka iilayare sida la socotaan dhammaantiin waxa uu ahaa maalmihii la soo dhaafay mid markaasi iska yara xanuunsan bilooyin ka hor ayay aheeday markii uu soo qoray fariin cajiib ah taasi oo dadku inta badan ka yaabisay walow maalmahan uu iska ahaa bukaan socod inkastoo xaaladiisa caafimaad ay aheeday mid iska yara wanaagsan haddana waxaa la qorsheynayay in la wado iile si markaasi xaaladda caafimaad gaar ahaan dhinaca madaxa loogu sameeyay qaliin isaga waxa uu sheegay inuu xanuuno badan ka dareemayo dhinaca madaxa qaliinka oo u muuqda mid halisa inuu yahay walaalihiisa Soomaalida waxa uu ka dalbaday in duco ay la soo garab istaagaan maadaama marxaladii koowaad uu gali doono qof kasta oo Soomaali ah iyo Muslim ah iyo waxa uu ka dalbadaba in ay u soo duceeyaan alfanaan iilayare waayahay iile waxa lagu xasuustaa in uu yahay nin fani ah waxaan ku xasuusanaa inuu yahay nin markaas heesaay caan ah dadkuna inta badan ay jecel yihiin markii uu ku luuqeynayo heesaha ama markii uu taagan yahay masrax faneedka maadaama inteena badan uu nagu qoslisiiyo markay taagan tahay sheekadiisa madadaalada haddana waxaa intaasi u dheer inuu iska yahay qof markaasi iska calool furan muuqaal oo goordhow sii daayay ayuu waxa uu ku codsaday in loo soo duceeyo iile fanaanka waa loo kacay Soomaali oo dhan ayaa u kacday markii uu soo qoray horraantii bishan fariin cajiib aheed taasi oo baraha bulshada si weyn u qabsatay dowladda Soomaaliya ayaa ka jawaabday ra'iisul wasaarihii xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa Muqdisho ku marti qaaday si markaasi xaaladiisa caafimaad loola tacaalo fanaanka ugu dambeyn goordhow ayaa laga yaabaa saaxiib inuu qaliin galo dhammaanteen aan u duceyno walaalkeen iilayare waad ogtihiin waa aabe Soomaaliyeed caruur hooyo iyo aabba asaga kaliya u ah fiirsanaya haddaba saaxiibayaal hadduu idin soo gaaro muuqaalkan aan kaga warramayno iila qaliinka geli doono waxaan iga codsanaynaa inaad dhammaantiin u sheer gareysaan maadaama laga yaabo in qof weliba ahi oo muslim uu soo duceeyo ducadiisa inuu ku badbaado iila waxaan leenahay allaha caafiyo waa saaxiibkeen waa walaalkeen asaga iyo sidoo kale dhibanayaasha kale insha Allah waan ku mahadsantiin dhammaantiin daawashada muuqaalkan ee noo sheer gareeya